kusoo dhawaada shirkadda Life Good waxaan caawa ka hadli doonaa saddex qodob oo muhiim ah. qodobka koowaad waxaan ku hadli doonaa waa maxay Life Good. shirkadda Life Good waa maxay? qodobka labaadna maxay soo saartaa? waxa ay soo saartana maxay taraan? qodobka ugu dambeeyana waxaan ka hadli doonaa company-gan sideen aga shaqeysan karaya. haddii aan ka shaqeystana maxaan ka faa'iidi karaya? may jiraan dad ka faa'iiday horumar ka sameeyay, maxay lacag ka sameeyeen iyo xoog kale aad u muhiim ah qeybaha dambe ay inoo aad doonaan. marka soo dhawaada insha Allah. haddii aan iskiin baro aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Abdullahi Recording in progress. waxaan ku magac dheerahay Engineer Abdullah bin Abdullah. waxaan deganahay dalka Belgiumka. haddaan ku bilaabo marka warbixinta shirkadda qaybta ugu horeysa ah waa maxay Life Good iyo maxay qabataa. shirkaddan Life Good waa company ku shaqeeya qaabka online-ka ah ama network marketing. wuxuu soo saaraa daawooyin vitamins oo dabiici ah kuwaas oo lagu horumariyo caafimaadka bini'aadamka. sidoo kale company-gani waxaa laga leeyahay waddanka Mareykanka. headquarter-kiisana wuxuu ku yaalaa isla waddanka Mareykanka ayuu ku yaalaa. marka Life Good waa company ku shaqeeya online ama systemka loo yaqaanay network marketing-ka oo runtii dhammaan maanta company-da ugu badan adduunka ay ka shaqeeyaan. sidoo kalena soo saara products natural oo dabiici ah oo caafimaad qofka lagu horumarin karaya. sidoo kalena company-gan waxaa laga leeyahay waddanka Mareykanka. headquarter-kiisana isla halkaas ayuu ku yaalaa. haddaba hadafka ama mission-ka uu company-gan leeyahay waa inay dadku helaan caafimaad buuxa oo aan qarash badan laga bixin. marka in dadku ay helaan caafimaad buuxa oo caafimaad products dabiici ah oo natural ah oo caafimaadkoodu ay ku horumarin karayaan ayagoo aan wax badan oo qarash aga bixin. sababtoo ah company-gani markii loo barbardhigo shirkadaha ku shaqeeya suuqa loo yaqaan network marketing ama company-da soo saara alaabaha naturalka dabiiciga dabcan wuxuu ku jiraa company-yada products-doodu aad u jaban yihiin si macaamiisha ay u helaan products-yada quality-goodu aad u sareeya qiimahooduna ku raali gelinayo aad u jaban. okay haddaba dadkaan aad arkaysaan waa madaxda amba hoggaanka sare ee shirkadda Life Good. dabcan dadkani waa dadka ugu sarsareeya company-ga Life Good. dabcan waxaa ka mid ah ninka xaggan noo taagan oo bin yiraahdo oo ah CEO-ga amba owner-ka shirkadda. sidoo kale ninkan ka hooseeya ee wato fanaanada cadaanka waa director of network marketing-ka. gabadhan xagga hoose ku sawiran ayadana waa director of product education. yaka ka koreeyana waa director of product development. soo marka ragani waa teamka ugu sareeya company-ga amba dadka hoggaanka sare ee company-ga. okay haddaba shirkaddani Life Good waxay iibisaa ilaa iyo in ka badan 15 product oo vitamins iyo waxa waaye waxyaalo aad u fara badan kuwaas oo ay ka mid yihiin man health caafimaadka ragga. dabcan products ay isticmaali karaan oo qaas u ah dadka ragga. sidoo kale products xagga energy-ga ama tamarta u fiican nutrition-ka kamida. waxa kamida products loogu talagalay dumarka oo kaliya. waxa kamida products kor loogu qaadaya immunity-ga ama difaaca jirka. sidoo kale waxa kamida products kamid soo saaro qaar loo isticmaala skin care kuwa lagu qurxiyo jirka ama beauty care ama qofku isku qurxinaya. sidoo kale waxa kamida body cleansing products oo qofka maaragtay jirkiisa uu ku nadiifin karaya. anti-aging baa kamida oo products qofka kala dagaalamaya in wajiga uu mimin ka soo galo ama qofka asigoo dhalinyaro ah u muuqdo haddana inuu qof da' yahay oo kale products loo isticmaalo qofku waxa waaye eedkiisa caadiga ama ka hoosaba ka dhigaya. sidoo kale waxa kamida weight management products xagga weight-ka ama qofka culayskiisa uu ku dhimi karayo oo qofka hadduu overweight uu yahay waxa waaye naaqma ku samayn karayo weight-kiisa uu hoos ugu dhigi karayo. okay haddaba products-daasi qaar kamid oo kuwa xagga inoo saaran haddaan soo qaadano D3 iyo K2 products-gaasi waxaa loo isticmaalaa waa supporting strong bone qofka xagga lafaha oo kale inay noqdaan kuwa maaragtay difaac leh oo qofka lafiisa ay burburin oo kale waxyaalahaas aad loogu isticmaalaa. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa maintenance health caafimaadka xagga wadnaha kale loo isticmaalaa. waxaa kaloo kamid ah products kale ay isticmaalaan dumarka oo ka kooban ilaa iyo 24 vitamins iyo minerals. sidoo kalena u fiican waxa loo yaqaanay waa promote health age
sidoo kale waxa kamid ah product kale oo loo yaqaan super green oo asigana runtii waxyaalo aad u fara badan ugu fiican oo kamid yahay circulationka dhiigga ama wareegga dhiigga kale aad ugu fiican sidoo kale ugu fiican waxa loo yaqaan sexual activity ama sexual health waxa kaloo kamid ah proteinkan oo ismacaalaan dadka sameeyay waxa loo yaqaan muqaha oo kale waa rebuilding qofka dadka jimka qaado oo kale ama dadka inay muruqa yeeshaan oo kale aad ugu fiican sidoo kale laalaabtooyinku waa aad ugu fiican yahay iyo productyo kale aad u fara badan xagga ugu hooseeya waxaa yaala product asigana loo ismacaalaa xagga waxa loo yaqaan anti aging oo kale ama qofka wajiga miminta ka gasho waxa la mid ah ismacaali karayaan okay kuwaas iyo kuwa ka badan ayuu company-ga soo saaraa haddaba qaybtan kale waa company-ga alaabtiisa uu ku cadeynayo inay yihiin kuwa quality-gooda la isku halayn karayo oo ah kuwa high quality dhammaan productyada company-ga waxaa lagu soo saaraa wadanka loo yaqaan USA amba United America sidoo kale waxay haystaan dhammaan company-ga productyada uu soo saaro shahaadada loo yaqaan GMP oo dabcan waa shahaadooyinka adduunka xaldahay controla alaabaha quality-gooda GMP waxa la yiraahdaa waa dhaqanka wax soo saarka wanaagsan waana nidaam lagu hubiyo in alaabooyinka si joogto ah loo soo saaro loona xakameeyo iyadoo loo eegayo heerarka tayada soo marka waa organization controla alaabtani inay tahay mid si joogto ah loo soo saari karaya iyadoo la xaqiijinayo quality-geeda iyo tayada inaysan isdhimin sidoo kale company wuxuu haystaa shahaado kale oo aydan loo yaqaana FDA oo loo yaqaan waa Food and Drug Administration oo ayadana ah maamulka cuntada iyo daawooyinka waxay mas'uul ka yihiin ilaalinta caafimaadka dadweynaha iyadoo la hubinayo badbaadada waxtarka iyo amniga daawooyinka soo kuwaana ayagana waxay ka haystaan shahaado cadeynayso alaabtani inay waxa waaye qofka bini'aadamka ah wax dhibaato u gaarsiinaynin sidoo kale quality-geeda iyo tayadeeda la isku halayn karayo sidoo kale waxa haystaan documenti kale cadeynaya inay yihiin productyo pure ah oo aan wax chemical ah wax la isku daray aysan ku jirin oo dhammaan inay yihiin kuwa natural oo dabiici ah waxay ka haystaan shahaadooyin cadeynaya okay haddaba xaggaas waxaan aga soo baxayaa company-ga iyo wax soo saarkiisa waxaan haddaba isla gelaynaa company-gan sidee aga mid noqdaa marka dabcan shirkadda Life Good sideen aga mid noqdaa iyo fursad nooceeba aniga iga banan haddaba markaad rabto inaad ka mid noqoto waxaa laga doonayaa kow inaad isdiiwaangeliso oo qofku uu isdiiwaangeliyo asigoo iska diiwaangelinaya qofkii soo casumay caawa linkiga kuu soo dirin inaad tiraahdo waxaan rabaa sponsor ID-gaaga amba linkigaaga ayaan rabaa si aan iskaga diiwaangeliyo waa kow midda labaad memberka naqshada qofku wuxuu bixinayaa $49.95 طبعا waa lacag $50 ayuu qofku baxsanaya si uu u noqdo full membership sidoo kale waa stay active qofku inuu ahaado active oo bil walba iska bixiya lacagta loo yaqaanay monthly membership okay haddaba haddii aan kontakii bixiyay ee aan isdiiwaangeliyay maxaan faa'iideeyaa waxaad helaysaa 75% oo discount ah 75% oo discount ah ayaad helaysaa markii loo barbardhigo shirkadaha ku shaqeeya network marketing productyada aad soo arkaysay oo dhan waxaad ku helaysaa qiimo dhimis aad u fiican waa qodobka koowaad waxaad kaloo helaysaa waxa loo yaqaanaa 3 website oo company-gu ku sameynayo oo aad adigu si shakhsi ah ismacaalayso mid waa marka isdiiwaangeliso waa mid dhaqaaqaada iyo xogtaada iyo teamkaaga iyo commissionkaaga aad kala soconayso iyo kuwa kale oo company-gu ku sameynayo sidoo kale waxaad helaysaa market tool system badalisa waxaad helaysaa tababaro online iyo offline ah oo si joogto ah aad company-ga aga helayso okay haddaba haddaan u galno xaqiiqdii haddaba qof company-ga uu ka mid noqdo wuxuu ka samayn karayaa bil walba $247.50 asigu uu hal qof qorin adigoon hal qof ganacsiga la wadaagin ama hal qof aanan company-ga ku soo biirin ayaad waxaad ka samayn karaysaa $247.50 laakiin haddii aad go'aansato inaad company-ga la shaqayso intaasi in ka badan ayaad ka samayn karaysaa lacagtan isay ku helaysaa insha Allah qaybaha dambe ayaan isla arki doonaa aan la socono insha Allah okay haddaba company-gan wuxuu lacag ku bixiyaa 6 qaabood oo lacag ku bixiyaa kow waxa loo yaqaanay waa weekly fast starting commission
weekly fast starting commission oo ah lacagta la qaato isbuuclaha waxa kale oo kamid ah lacag loo yaqaan matrix commission oo waxyaalaha cajiibka oo kambanigani uu aad run dadku soo jiidanaya kamid ah waxa kale oo kamid ah margin bonus retail commission influencer bonus iyo diamond bonus pool lixdan qodob insha Allah waan is arkaynaa okay qodobka koowaad wuxuu ahaa waa weekly fast starting commission markii aad company-ga ku soo biirto ee aad kontonka dollar diiwaangelinta aad baxsato kullama aad cid la wadaagto ee linkigaaga amba ID-gaaga aad siiso oo company-ga ku soo biiro waxaad ka helaysaa boqolkiiba 50 oo aad ku helayso si weekla weekend qof baad qortay linkigaaga uu qaatay uu ku soo biiray company-ga waxaad ka helaysaa boqolkiiba 50 oo ah $25 oo commission ayaad ka helaysaa qof walba oo aad linkigaaga siisana sidaas ayaad aga helaysaa boqolkiiba 50 okay ilaa iyo waxaad haystaa 10 level oo teamkaaga dadka ay si casuumaan aad commission aga sameyn karayso dabcan aan ranki baa tahay waxaad keentay hal qofood baad keentay waxaad ka heshay boqolkiiba 50 qof labaad baad keentay waxaad ka heshay boqolkiiba 50 $50 xaggaas ku heshay waxaad u gudbaysaa darajo loo yaqaan bronze markii aad tahay dadka adigu aad keentay daartii kuwa ah dadka ay keenaan waxaad ka helaysaa boqolkiiba 10 markii aad tahay silver ilaa iyo 4 level baad ka helaysaa markii aad tahay gold ilaa iyo 6 level baad ka helaysaa markii aad tahay platinum ilaa iyo 8 level markii aad tahay diamond ilaa iyo waxaad ka helaysaa 10 level ayaad waxaad ka helaysaa lacagta loo yaqaanay referralka ama dadka teamkaagu ay keenayaan oo aad commission ka sameyn karayso taas waxa loo yaqaanaa waa lacagta weekly-ga ah oo ah waa weekly fast start commission waxa kaloo jirta lacagta loo yaqaanay matrix commission dabcan hore waxaan ku soo dhahay company-gani waxaad ka qaadan kartaa bil walba $247 iyo 50 cent adigoo aan cidna keenin dabcan waa qaybtaani loo yaqaanay aan rankiga oo ah qofka uu company-ga uu ku soo biiro haddii ku buuxsamaan 12 level lacagta ay ka sameyn karaysaa okay waxaan isla eegaynaa marka adiga company-ga ku soo biiray cidna maad keenin dabcan qofkaasi company-gu suganaya hadba dadka hoostiisa la soo dhigaya kuwaas ayuu xisaabtanaya laakiin qofka asiga go'aansada inuu shaqeeyo oo team kala sii keena kullama ay teamkaaga sii bataan waa kullama aad u soo dhawaataa targetka xagga haddii aad tahay aan ranking waa $2,400 bronze-ka waa $4,000 silver-ka isla $4,000 dabcan waa isku level oo isku jira levelka aftertoonaad isku jiraan goldiga wuxuu ku jiraa levelka ilaa wax u furan 14 level waa 8,000 platinum waa la mid waa isku level diamond-kana 15 level u furan waa $16,000 dabcan lacagtani waa qayb kamid ah lixda lacag oo company-ga bixiya waa mid kamid ah oo qofka ka sameyn karaya waa billaha oo kaliya okay waxa kaloo jira lacag loo yaqaanay margin bonus oo company-ga bixiyo oo runtii markii loo eego matrix-ka runtii ka lacag badan oo lacag runtii qeyr lacag lehen buu company-ga xagaa ku bixiya okay lacagtani waxa laga helaa dadka adiga directiga kuga ah ilaa iyo 5 generation amba 5 generation ay isku xigta baad commission-kan ka sameyn karaysaa dadka directiga kuga ah waxaad ka helaysaa boqolkiiba 50 tusaale ahaan aniga xagga taagan waxa igu hoos qoran Cabdixakiin iyo Aisha laba qof baa igu hoos qoran okay Cabdixakiin bishan wuxuu helay $1,000 Aishana waxay heshay $2,000 commission-ka ay heleen uu company-gu wuxuu kugu dhufanayaa boqolkiiba 50 maadaama adigu ay direct kugu yihiin lacagtaas ay heleen adaa sabab u ah maadaama aad waqti iyo juhdi gelisay si ay u shaqeeyaan si ay u dhisaan okay kan wuxuu helay kan wuxuu helay $2,000 helay company-gu wuxuu ka siinayaa boqolkiiba 50 kii kunka helay waxaad ka helaysaa $500 kii $2,000 helay waxaad ka helaysaa $1,000 baad ka helaysaa commission xaggaas waxaad ku heshay $1,500 oo commission oo kaaga madax banaan lacagii commission-kaagii aad waxa waa qeybaha kala soo qaadatay ilaa iyo waxaad helaysaa wax loo yaqaan 5 generation oo teamkaaga hoos wada dhacaya ay ka heli karaysaa waa boqolkiiba 50 boqolkiiba 10 5 iyo boqolkiiba 3 waxa kaloo kamid ah retail commission oo company-ga bixiyo oo dabcan retail commission waxa laga helaa waa differentiga u dhaxeeya member price-ka
iyo waxa loo yaqaan retail price-ka sida sidoo ka arkaysa dabcan product-gan qiimihiisu waa $8 marka loo eegayo member price-ka $8.95 retail price-kuna waa $17.50 marka ayadoo xagga laga eegayo ayuu company wuxuu ka siinayaa 50% hadii qof direct kuga ah uu iibiyo product-gaasi ilaa asigana waxa leedahay 10 generation ama 10 level buu company ka siinayaa ayadoo loo eegayo markastaba levelka amba darajada adigu aad ku jirto okay waxa kale oo kamid ah lacag company uu bixiyo influencer bonus oo ah qofka iib fara badan sameeya oo saahan oo kale markii aad sameeyso $2,500 oo bil walba aad bishii aad iibiso waa hadii aad bishii iibiso $2,500 boqolkiiba 50 ayaa waxa lagu darayaa waxa loo yaqaanay boqolkiiba 10 baa lagu darayaa xaggaas waxaad ku helaysaa boqolkiiba 60 ayaad helaysaa hadii aad bishii iibiso ilaa 5,000 boqolkiiba 20 baa lagu darayaa oo ah boqolkiiba 70 ayaa xagga ku helaysaa hadii iibiso 10,000 ilaa boqolkiiba 80 25,000 ilaa boqolkiiba 90 ayaad helaysaa difference u dhaxeeya retail price-ka iyo member price-ka hadii ilaa 50 kun aad iibiso bishina waxaad helaysaa boqolkiiba 100 tana waa lacagta loo yaqaan influencer bonus uu company-gu bixiyo waxa kale oo kamid ah runtii lacagaha loo yaqaanay diamond bonus pool amba lacagta uu company-gu ka siinaya dhammaan iibka uu sameeyo oo dhan oo adduunka oo dhan ka sameeyo ayuu ka siinaya boqolkiiba 2 dhammaan iibka uu company-ga dunida ka sameeyo ayuu wuxuu ka siinaya boqolkiiba 2 waa dabcan waa lacag runtii aad u fara badan oo waxa waa qeyb caqli ah okay xagaas waxaan ku soo afmeerayaa warbixintii waxaan isla eegaynaa dad kamid ah dadka company ka shaqeeya ee lacagahan aan ka soo sheekiyay qaybo kamid ah qaatay dabcan waxaan ka soo sheekiyay lacag loo yaqaanay matrix bonus oo aan ku lahaa qofku waxa loo fiirinayaa bronze iyo silver iyo darajada markaas uu yahay dabcan qofka hadda hal bil waxa uu soo dhacday $911 oo commission dabcan waxay ahayd bishii Mars ay ahayd sidoo kale qofkan kale bishii Mars isla bishii Marso lacag loo yaqaan margin bonus kan ku dhaw waa lacag qeyrul caadi oo intii aan fara badan company-gu bixiyo wuxuu helay $14,270 retail bonus-ka oo dabcan qofka product iibiyay oo kale wuxuu ka helay $32.31 waa lacagta loo yaqaan lacagtaani waa monthly marka intaan waxa la bixiyaa bil ayaa lagu bixiyaa dhinaca kale hadaan eegno lacagta ayadana waxa la bixiyaa weekly-ga waa lacagta loo yaqaan waa fast start commission-ka dabcan 16kii Mars qofkan wuxuu helay isla eegno oo nooc calaamadeenaya okay qofkan 16kii Mars wuxuu helay $180 23kii Mars wuxuu helay $991 sodonkii Mars wuxuu helay $125 dabcan xagga waa 16kii April waa lacagtii monthly-ga oo soo dhacday oo ah $146 waxaan eegaynaa isla bishaasi isla isbuucaas oo isla 6 April isla ah waxa lacagta weekly-ga soo dhacday $936 dabcan waa lacagahan ka soo sheekina ayadoo qof qaadanaya dabcan hadda lacagta inta aan ku soo xusay weekly-ga waxa qaatay qof Soomaaliyeed oo inaga mid ah anagoo kala dad badan oo Soomaaliyeed oo lacagaha qaatana way jiraan okay hadaba waxa jira darajooyin la gaara dabcan dadka hadda arkaysan screen-ka noo saaran waa dadka gaaray darajada loo yaqaan gold dabcan company-ga waxa jira darajooyin la gaaro aan rank qof ugu isdiiwaan geliya waxa ku xoga bronze waxa ku xoga silver waxa ku xoga gold dabcan dadkani waa dad gaaray darajada gold kaliya ma dad aad u fara badan ayaa gaaray waxa kamid ah Dr. Hanad Cilmi waxa kamid ah Fathiye Hussein sidoo kale Zamzam iyo Cabdiraxmaan Jaamac iyo Mr. Halwa Ali dadkani waa dadka gaaray darajada gold iyo qaar kale oo aad u fara badan oo darajadaasi gaaray waa kamid ah sida Dr. Qali Master Said Ereg iyo Hamdi Diamond qaar kale aad u fara badan sidoo kale gold waxa ku xoga darajo loo yaqaanay platinum oo company-ga darajooyinka ugu sareeya kamid ah dabcan hal darajo ka sareyso loo yaqaanay diamond-ka platinum waxa gaaray hogaamiye engineer Maxamed Jaamac oo hadda zoom-ka nagala jira waa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee gaaray darajada platinum
وان sidoo kalena waa asaasaha jaamacadda Sahad University iyo macadka East Wayland Academy wuxuuna hadda qarq u saaran yahay darajada loo yaqaan Diamondka okay xagaas ayaan insha Allah ku soo afmeeri doonaa haddii aad nagu soo biirto dabcan waxyaalaha aad heli karayso waxa kamid ah to improve your health inaad kor u qaado caafimaadkaaga adigoo helaya productyo dabiici ah oo natural ah inaad hesho lacag runtii unlimited oo dabcan sawirada hadda arkaysiin oo dadka Soomaaliyeed oo lacagaha ay ka sameeyeen idinkuna ka sameyn karaysaan waa to become healthy inaad noqoto qof caafimaad qaba oo lacag haysta hadiya sidoo kale waxaad helaysaa wax loo yaqaanay personal development inaad noqoto qof hogaamiye ah dad hogaamiya system dhisa runtii tababarana helaya oo si joogto ah waxa waa noloshiisa horumarinaya sidoo kale inaad hesho waxa loo yaqaanay waa passive income dakhli aan xad lahayn oo runtii adduunka meelo kala duwan ka soo galaya kaasoo aad team ka dhisayso adigoo hal magaalo joogo magaalooyin kale aad u fara badan dabcan maanta hadii lagu yiraahdo dukaankaaga xaafadada ka furnaado ama dukaan caalami ah adduunka ka shaqeynaya lahaa dabcan qofku wuxuu dooranaya inuu laabo dukaan dunida ka shaqeynaya marka haddaad ku soo biirto shirkadda Live Good waxaad heli karaysaa fursad adduunka oo dhan aad ka shaqeyn karayso adigoo gurigaaga jooga xilligada aad baad maasantihiin xagaas ayaan insha Allah ku soo meerayaa warbixintayda caawa